ugu horeyn waxaad noo sheegtaa bal sababta adiga iyo lamaanahagu aad ku doorateen in arooskiinu ka dhaco Somaliland waqtigan. haa waxaan go'aansanay in aan isguursano maxaa yeelay waxaan wada soconay 4 sano 2 ka mid ah 4taas sano ee aan wada soconay waxaan ku noolaa Hargeysa dadka halkan joogana waxaan nahay saaxiibo waxa kaliya ee muhiim ii ahaa waa saaxiibadayda jooga Canada sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan halkan xaflad ku sameysano maxaa yeelay saaxiibadeena Somaliland ee aan imaan karin Canada ayaa nagala qayb qaadanayo halka markaan ku laabano Julayna waxaan doonaynaa in aan xaflad kale halka ku sameysano. baraha bulshada Soomaalidu ay ku xiriirto waxa qabsaday sawirro aad u qurux badan gaar ahaan adiga oo xiran dharka hidaha iyo dhaqanka ay dumarka Soomaalidu u leeyihiin hidaha bal arintan laftigeeda in sababta u dooratay inaad xafladaadii arooska dharkan xirato maxaad noo sheegi kartaa? waxaan u doortay maxaa yeelay dhaqanka Soomaalida wuu qurux badan yahay aroosyada asxaabtayda ee aan tagay ayaanan ku arkay waanan ka helay fashionka noocan ah wuu qurux badan yahay aad ayaanan u jeclaystay dhaqanka Somaliland.